xaliimo badal jaamac oo ahayd gabar 20 sano jir isla markaana bilo ka hor dhameysay dugsiga sare waxbarashadeeda ayaa bishii ramadaanka dhamaadkeedii gaar ahaan 26 bishii abriil waxaa lagu afduuftay xaafadan oo ku taala sayidka dhinaca degmada Waabari ee magaalada Muqdisho sida ay noo sheegeen eheladeeda gabadha ayaa koor inta la afduuban eheladeeda iyo iyadaba loo soo diri jiray sida la sheegay fariimo markaas lagu hanjabayo isla markaana uu qofkaasi ugu hanjabayo in uu doonayo in uu guursado hadii aan taas loo suurto gelinna uu gabadhaasi afduuba doono balse maalintii ahayd 26 bisha abriil gabadhii oo loo diray in markaasi ay keento guriga adeeg xilligaasi la afduubtay كافية صلاة جامع يسودك عبد العزيز صلاة جامع وأبتيجا يا هبريرتا قبضن إسلام كان أهادت كي سوكر صدي حليمة بدل جامع وهلدي أي قبل الجيران أيها واحد يكور من فلكاس يسوده ودعي حليمة هو يدا ميل البلوك بين قصارتي إن محاتي هندها ما إن من كاسان هاي أفر سركور أضاير أيان تربوك كاسو دبقلني وأنا لها الجديدي وأنا الجديدي حالة لها إن هذا يستك في عن مكان اسكو بيانينه gabadhooda wayna siiyaan oo daacish nahay dhahna waa nahay dadka xunna sida hooyada ay kale ay dadka baloogaan markaas waxaan ku iri waxa tiraahdaa hadaa dad shirtiin oo run sheegisiin dadkiina soo dirsada aragnay marka aniga waa yaabana stiil qof igu ciyaaraya u qabaa marka bas ayar bi dadka iskama soo dirnuu dhahay laakiin bi dadka adinkoo kala ah oo gabdhaha noo diida gabdhaha ka adeejinaa xeelada anaga naqaan adeegsanaa aakhirkana waan maxaa la dhahaa gabadhaas gacanta ku dhignaa gacanta markaa ku dhignana faamilgood ayaga qasab noogu meheriyay markaas waxaan waxa ku tiraahdaa hooy aniga gabadh waa is ag fadhinaa waxa ku tiraahdaa see macnaha dad ugu soo adeegsataan wuxuu yiri hadaa ku sheegno waad feegignaanaysaa ma guriga ku jiri doontaa waana ogaan doontaa buu yiri baloogay ku qabat talaadadiina gabadhii way baxday canjeelay noo dugtay wiil waxa noo joogay oo dibaashiga xanuunsan wiilkii bay intay canjeelay u boobsisay wiil dhaawac oo la qalo buro laga qalo ahaa waxa uu soo qabanayaa meeshaan uu soo qabanayaa hilib ilaahay amarkiis way baxday dib dambaba gabadhii umaana arkin anyway markay gabadhii hal maal iga maqantay ayagii baan number baa ila soo hadlay numberka wuxuu dhahay gabadhaada macnaha gabadhaydii nimankii gabadhii baan anaga hayna naagayna ku dhex jirtaa wax dhiba ma qabto ayadii baa tiri macnaha waad soo qaadateen hooyaday laakiin inaan la hadlaan rabaa walwal inay walwashaan ka baqayaan laakiin shuruud baan kugu xiraynaa aabaheed lambarkeeda noo qoraysaa aabaheed lambarkeeda baad noo qoraysaa gabadheeda jaa lambarkeeda markay qaateen waaba damiyeenba oo meel lagala xariiro gabadheeda ma haysato jaa qof la haystaa lambarkiisa laga bilaabaa lambarkeeday ka bilaabeen bas aabaheed waa inii qorayaan haddaa gabadheeda codkeeda ay maqashiinaysaan baan ku iri waan inii qorayaa haye waxay dhaheen waa kala bedelanaynaa gabadhii ilaahay amarkiisa waa ila hadashay gabadhii waa arka codkeeda marka arka aad baa u argagaxay gabadheeda codkeeda macnaha inay qof la haystaa tahay hooyo ma iimaan kartaa hooyo awood ma lihi bay tiri xaggee joogtaa way igu damiyeen hadda waa la igu soo ceshay xaggee joogtaa hooyo nimankan meeshay joogaana joogaay tiri qof baa wuxuu dumar ahaa hadal gabadha ka daba dhahay markay aamustaba qof dumar ahay codkeeda ila ahayd adhoon laakiin dumara ila ahayd ani gabadhii lambarkii aabaheed baan qoray aabaheed bay waceen aniga hooyan gabadha oo hooyadii labaad baan anaa gabadha korsaday waxbarasho hadda dugsiga sare dhameysay xalfadii dugsiga sare hadda loo dhigay gurigay ku qaangaadhay wax ku baratay hooyadeed iyo waxay waceen iyo aabihii bay isku waceen isla jooga xagga ee degmada Aawdwaa gabadha nagu meheri maama kaafiyo waa soo aragnay waa soo heshiinay abtigeed waa soo heshiinay waxaan rabaa gabadha inaad nagu dartaan naguna meherisaan aabeed wixii is iijin waxay timaama in arku dhahay waxaan ku meheriyaa hadaa rabtaan gabadha inaan ku meheriyo dad wanaagsan oo wanaag u socotaan gabadha gurigeed ku aftuuteen geey anigana ila soo xidhiidhay dadkaas askara meelaha diyaarsadeen xaggay ka baxeen wayna raadinayaan ma u tagi karno hadda waayahay aniga degmada Cawdaqan joogaaye meel walba dadku waa family soo dirsada dad soo dirsada bas waana ku soo celin way damiyeen haddana maalinkii kale la hadleen odaygii waxay dhaheen maxaa la dhahaa ma nagu meherinaysaa gabadh maxaa isku dhajinaysaa war maxaa isku dhajiyay adinkaaba isku dhajinaysa ila soo xidida oo aan in arko hadaad hin maya ninka xaakimka ninka maxaa la dhahaa qaadiga la hada war aniga qaadigo maxaa dhahay war gabadhan waxay leeyihiin nagu meheriyo niyaho qaadigo hadaa islaamtu dhahay geerina waa aqaanaa buu dhahay aabaheed markaas aabaheed sokor qaba sokortii xataa ku kacday hadaa islaamtu uu dhahay oo qaadiga sheegaysa ka dhab yahay aadan ahayn qof maarta tuug ah gabadhan meesha ka soo aftootay hadaad wanaag rabtana maxaa la dhahaa isku keekeen anaa kugu soo warcelinayna qaam waa la damiyay
gabadhii sidii baan meel walba ku orodnay ilaa hadda hooyaana nasan aabbaa nasan ayeeyaa nasan abtibaa nasan waa taagannahay koos gabadhanadii geerina kuma hayno qofka markaad geeri waa wax furcada waa geeri qofku markuu dhinto waa xabaalanaysa waa loo dhasha markuu nool yahay laakiin aadan nolol iyo geeri midna ku hayn waa taagnaanaysa waxaad leedahay bal inaad meeshaan dhow ka soo qabato gabadha abti baanu ahay Xalimo Bedel Jaamac walaasha baa dhashay gurigaanay ku noolayd muddo badan oo iyadoo yar oo saqiir ah ilaa college-ka ku dhamaysay bishii Ramadaanka dabayaaqadeedii baa gabadhaasi adeeg u doontay aroor kadibna waa la waayay niman baa soo hadlay nimankiina macnaha gabadhaas anaga haysan yiraahdeen Daacish baan nahay gabadha hana la siiyo haddii qofka telefoon ka soo hadlaya si gabar loo siiyo dee anagu islaam baan nahay waa qof walba uu fahmi karaa inaan telefoon idina qof hada la aqoonin gabadha sidaas ku maqan tahay ilaa iyo haddana macnaha ma hayno meel ku sugan tahay iyo inay nooshahay dhanka kale Xalimo Bedel Jaamac oo ahayd gabadha sida la sheegay la afduubtay ayaa eheladeeda abtigeed iyo habreerteedba waxay ilaamaha ammaanka shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed bay ka codsadeen in gabadhooda lala raadiyo isla markaana qofka ugu yar uu ku soo kaaba duco inay arintaas tan haysta dad dulmisan baan nahay dulmigaas aan nagula sameeyay dulmigaas inay wax ka qabtaan because waa dadkii mas'uuliyiinta maanta wadanka oo ah berina waa la weydiinayaa maxaa la dhahaa qof walba mas'uulkiisa gabadhaas Xalimo Bedel la yiraahdo oo bishaas mataqaanaa Ramadaan dhamaadkeedii sidii gurigeeda looga afduubtay ilaa hadda maqan meel ku sugan tahay aan ka warqabin inay nagala qayb qaataan xogteeda noo soo raadiyaan nala soo xiriiraan telefoonadana macnaha mataqaanaa waan u wada qoraynaa insha Allah Xalimo Bedel Jaamac ayaa 26 bishii Abriil muddo ku dhow haatan ama bil laga joogo laga afduubtay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda ay ku nooleed sida ay eheladeedu sheegeen dhacdadan ayaana waxay tahay dhacdooyinka ugubka ah ee muddooyinka dambe ku soo badanayay magaalada Muqdisho